qaybtana waxaanu ku eegi doonaa barashada ereyada afka Soomaaliga ah. Ereyga aadan waa magac, waana qofkii ugu horeeyay oo uu Ilaahay abuuro, Nabi Aadan, oo ay ka soo farcamaan bini aadanka oo idil. Sida la aligeed dad badan oo kala diima ah ayaa magaca aadan isticmaala. Hase ahaatee, qofka Soomaaliga markuu ku yiraahdo aadani micnaheedu waa maxay? Waa intii Nabi Aadan ka soo farcantay, waa dadka ama waa qof. Tusaale ahaan, haddii aad tusmo ka bixinaysid, waxaa odhan kartaa waxaan nahay ilmo aadan, adigoo markaa ka hadlaya bini aadanka oo dhan inay ka soo wada farcameen hal qof oo ahaa Nabi Aadan calayhi salaatu wasalaam. Inta aadame adduunka ku nool waxay rabaan nolol wanaagsan. Tanina waxa weeye tusmo kale aan idiin soo qaadanay bini aadanka oo idil in ay u baahan yihiin inay ku noolaadaan nolol wanaagsan. Aadan sidaasoo kale waa magac ay la wada baxaan dad kala duwan oo kala diime ah. Ereygana waxa uu ahaa ereygii aanu maanta idiin dooranay.